waxaa gelinkii dambe ee maanta oo sabti ahayd magaalada Muqdisho lagu daahfuray xaruntii saddexaad ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo uu ku yeelanayo gobolka Banaadir ayadoona munaasabadii xarig jarka xaruntan cusub ay ka soo qayb galeen inta badan golaha fulinta ee xisbiga xildhibaano xubnaha xisbiga taageerayaasha iyo marti sharaf kale waxaana xaruntan xariga ka jaray gudoomiyaha xisbiga mudane Xasan Sheekh Maxamuud xaruntan cusub oo ku taala degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaa qaabili doonta xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga UPD ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ee dhaca bariga iyo waqooyiga Muqdisho gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xarig jarka kadib khudbad qiimo badan ka jeediyay munaasabada ayaa waxa uu sheegay in xaruntan cusub ay aad muhiim ugu tahay xisbiga isagoona xusay in xisbiga uu xarumo waaweyn ka furan doono dhammaan gobolada dalka gobolka Banaadirna uu yahay meesha ugu muhiimsan maadaama ay caasimada dalka tahay in ka badan 3 milyan oo shacab Soomaaliyeed ahna ay ku nool yihiin xaruntii saddexaad ee xisbiga nabadda iyo horumarka magaalada Muqdisho uu ka furo waaye aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay xisbiga xaruntan iyada oo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba inaan gaarna ay tahay haddana magaalada Muqdisho caasimada jamhuuriyadda oo xarunta xisbigana ay ku taalo in uu daafeeda kala duwan oo xafiis ku lahaado aad ay muhiim u tahay waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo intii maxaan ku raaday deegaankan iyo magaalada Muqdisho guud ahaanba degan ee ka shaqeysay abaabulka iyo furitaanka maxaan ku raaday xafiiskan saddexaad in la furo xaruntan saddexaad in la furo aad iyo aad ayaa gabdho badan iyo wiilal badan oo dhalinyaro iyo akhyaar kaleba ay xoog iyo xoolaba u geliyeen sida xaruntan maanta aan u daafuri lahayn waa meel insha Allah ilaahay idinkiis la isugu imaan doono danta caamka iyo masaalixda ummadda iyo mustaqbalka sidii loo hagaaji lahay meel looga tashado ayay noqonay xaruntan ma aha mana loogu talagelin marna ma noqonayso meel sideedaba xumaan laga abaabulo ama xumaan looga tashado ama dib looga tashado ma aha meel wanaaga ummadda wixii maslaxad u ah ummadda wixii maslaxad u ah deegaanka wixii maslaxad u ah dadka meel looga tashado oo wanaagaas laga ambaqaado ayay noqonay meel la isku warsado dadku ku kulmaan laana muxuu ahaay sida uu tilmaamayo dastuurkeenna dadku waxay xaq u leeyihiin muwaadiniinta ah inay isu yimaadiin inay shiraan inay tashadaan in amuurahooda ay maxaan ku rahay ka tashadaan ayaga oo mar walba sida wanaagsan iyo waxa wanaagsan ka tashanayo annaguna waxaan rabnaa waa intaas dalkan waxyaabaha ciladaha jiro inkastoo ay badan yihiin tashi la'aanta dadku inaanay tashanin waxay ka mid tahay waxyaabaha mashaakilaadka aan haysto Soomaalidu waxay ku maamaadaa wixii dhulka lagu guntado ayaa garabka la saartaa talada in la gunto oo la isweydiiyo oo laga wada hadlo oo markii la isla gartana ama inta badan isla garatana la isla qaado waxay u baahan tahay waa intaas hadii dabcan wax aadan dhulka ku guntanin inta isku toosisid aad garabka iska saarato horena waa u sheegnay wax waaye qaarna hore u dhaca qaar gadaalow kaaga dhaca qaar garabku ka mudaa laakiin marka dhulka inta ku toosisid isku xirtid ayagoo toosan garabka saaratid muxuu ahay meeshaad rabtay waad geyn kartaa ayagoo aan kala daadanin qaarkood jajabin qaarkoodna aanay qalooc taladuna waa intaas oo kale inaan tashano inta aan go'aan la gaarin oo wax lagu dhaqaaqin oo aan maxaan ku raadin ficil la sameeynin horta in aqligu shaqeeyo maslaxadu shaqeyso dhaqanka wanaagsan oo shaqeeyo sida qaanuunka iyo nidaamka iyo shariicadu ay qabto ay shaqeyso la iswarsado inta badan dadku isu yimaadaan markii la tashado inta badan wixii sax ay u arkaan isku raacaan marka waxa in lagu dhaqaaqo dhinac walba loo dhaqaajo waxa laga hadlayaa waa siyaasaduna waa qaabaynta mustaqbalka ummadan wax deeqa oo ka dhaxeeyo oo nidaam waa dawladnimo dawlad ay leeyihiin iyagu ay ka tashadeen iyagu ay qaab iyo nidaam u sameysteen ay raali isaga yihiin iyagu ee ka fikirta danahoodii iyo masaalixdooda dawladdaas waaye midda mar walba in la sii horumariyo la sii qurxiyo dawladnimadeena dhibaato gaartay laakiin meel dheer ay ka timid maalinta ka dambayso waxun baa ku soo kordhaayay oo soo qurxoonaanaysay maalin walba meel u soo hoyanaysay xisbiga UPD ayaa xaruntiisa dhexe
waxay ku taallaa agagaarka eerboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayadoona xarunta labaad ay ku taalo degmada hodan ee gobolka banaadir halka xaruntan saddexaad oo ku taala degmada cabdilcasiis ay ku biiri doonto xarumahaasi uu xisbiga ugu talagalay xubnihiisa iyo taageerayaashiisa si xarun waliba ay u qaabisho degmooyinka ku hareeraysan nabad iyo horumar UBD